وقصة شيء قفك عفيف كاين ولا هي بدل خير قبسيه قصدين كسو gabagabayn lahayn waxa weeye mid kale iyaduna sheegaysa qofka xaraanta iska daaya dadiyo duuyaba inuu lahay bedel khayr qabasiinayo jidka weyna Dimashq niman ardayaba wax ku akhrisan jiray qarniyadii dhexe nin daaliba ba kamid ahaa cid masruufta mu haysanin aad buu gaajooday maalin maalmaha kamid ah waynu soo gaagaabinaynaa gaajadii aad bay u qabatay cid uu la hadlana waa waay uu iska xishooday nafti markii dambe waxay ku qaaday war waxaad gaadhay uu isqanciyo wuxuu waxaad gaadhay heerkii oo dadka xoolahooda uu xalaasha ku ahaa de balaqalkan kugu xiga in yaruun ka soo qaado oo aad cunto oo aad ku gaajo beesho hadhow baad u magnabi doontaaye masaajidkii buu dusha ka fuulayo guryihii ku xigay mid kamid ah ku yara dhaadhacay madbax hilib ka soo kankamayo ayuu galay hilib udgoon hilibkuna de qofka saruuradaysan uu u soo uraa madbaxii buu galay markaad digaagad karaysa oo halkan bislaanaysa ayuu in ka goostay inta markuu afka galiyay buu naxay wuxuu maanta ayaa adigoo ardaya oo daalibul cilmi oo diin ilaahay baranaya oo masaajid ka soo baxay baad xaraan cadtuugtay wuu iska tufo masaajidkii buu ku noqday masaajidkii ayuu ku laabtay halkiisii buu iska fadhiistay sheekhi baa kitaabkii bilaabay isagana indhihii baa madow kitaabkaba ma arkaya gaajo daraadeed iyadoo xaaladiisu sidaa tahay ayaa ruux dumar ah oo xijaaban ayaa halka ay soo taagtay sheekha agtiisii oo way la xanshashaqday markii dambu ay gabadhi dhinaca uga dhaqaaqday ayaa isagii buu la hadlaa wuxuu heblow kaalay gabadhani warkaas ay sheegtay gabadhu maxay u socotaa waxay leedahay aabahay waa halka adeerkay waa halka fadhiya ninkaygii waa dhintay gurigan jaarkiina abaan mudaba ku jirnay mudaba nin baan u baahnaa gurigu waa camiran yahay wax qofka looga baahan yahay ma jiro deeni guursadaan raba in guursada ayaan doonaya warbalka waran buu adigu wax ma isla haysaayo gabadha carmashaabi waaye ma inaga asturaysa jaarkeen ah de maanta waxina soo mooday markii hore uu yara warwareego uu iska xishoodayo markii dambe wuxuu yahay diyaar baanisho ana musta'id waayahay adeerkeed u yeedhay horay baa looga meheriyay markii dema kitaab uu joogaya kitaabkiiba ka dhaqaajay gabadhii xaaskii siday noqotay gabadhii iyo adeerkeed buu horay ka raacay gurigii bay tageen gurigii buu soo weegay gurigu basho waa kii u dhacay way fadhiisteen dherigii bay ka soo riday dherigii muxuu noqday kii uu digaagada intii ka goostay hambadiisii waa qiso dhacday bay ku leeyihiin culimadu hambadiisii aba loo keenay marka maxaa meeshii ka soo baxay xaaraantii ninkii iska daayay waxa ka soo baxay inuu gurigii iyo gabadhii iyo maalkii iyo dherigii wixii bas la helay waxa intaas oo xalaal ah tii horena xaaraantii ilaahay daraadii buu daayay intaas oo dhan waxay walaalaya ka turjumayaan man taraka al-harama li ajli Allah awadahu Allah khayran min dhalik qofka xaaraan iyo xumaan ilaahay daraadii u daayay ilaahay wuxuu siiyaa badal khayr qaba بدل خير قضاء الله